بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maanta waxaan ka hadli doonaa sama-falka waalidka qaybteeda saddexaad labadii qaybood ee hore qaybta koowaad waxaan ka hadalnay sama-falka waalidka iyo sidoo kale qiimaha uu leeyahay qaybta labaadna waxaan kaga hadalnay sheekooyin ku saabsan sama-falka waalidka iyo waxyaabaha laga helo insha Allah taala qaybta saddexaad sama-falka waalidka waxaan ka sheekeyn doonaa haddii waalidka loo sama-fal waayo macaaq lagu noqdo waxyaalaha ka dhalan doona ka faa'iideysi waxan dad fiidiyoodii hore rabtay inaad daawato linkiga dusha sare ka soo baxaya taabo si aad u daawato fiidiyooyadaas insha Allah taala san hore u soo sheegnay maanta waxaan ka sheekeyn doonaa sheekada waalidka haddii loo sama-fali waayo maxaa dhacaya sheeko waxaan soo qaadanaa markuu magaceegu ay tahay kama tadiinu tudaan sida aad adigu deynta u gashay baad deynta lagu gali ama sida aad ula dhaqanto qofka ayaadna lagu la dhaqmi wiil ayaa aabihii markii uu weynaaday aabihii wax uga baahday aabihii intuu gacan ula tegay ayuu sidoo kale aflagaadeeyay markii dambe intuu lugta qabtay jiiday ilaa iyo albaabka gaarsiiyey dadkii jaarku albaabka soo garaaceen uu aabihii lugta sii daayay wiilkii inankii u dhalay ayaa isaguna wiilkiisii wax uga baahday isagana inta sidii oo kale loo garaacay aabihii uu garaacay la aflagaadeeyay ayaa sidoo kale inta lugta la jiiday albaabka la gaarsiiyey albaabka markii la gaarsiiyey buu yidhi anigu aabbahay dhinacaas nagu joojiyey dhinaca igu jooji haddaad idhaafisana waxay ka dhigan tahay inuu ilaahay aada igu cadhoonayo marka saad ula dhaqanto waalidkaaga ayuu adna in ilmahaagu kula dhaqmi doonaa sheekada taa lamidka ee ku xigta waxa weeyaan wiil ayaa isaguna aabihii markii uu weynaaday uu da' noqday dee ajishii ay hore ugu iman weyday isaguna uu dhibsaday waxa uu samayntu aabihii jawaan ku riday buu jar ka tuuray wiilkii baa wiil dhalay isaguna wiilkiisii baa qaaday intuu jawaan ku riday buu meel ka tuuray wiilkii la dhalay baa isaguna wiil kala sii dhalay wiilkii uu sii dhalay baa isagana inta jawaan isaga lagu riday jarkii isagoo lagu sii wado uu yidhi ma jarkii baad iga tuuraysaa aabbahay aan ka tuuray kadib inankiisii uu soo ceshay xaafadii buu keenay dee waxay ka dhigan tahay markaa mar walbo adigu aad wax ku samayso adna waa laguu sii samaynu ilaa iyo aad joojiso waxa aad samaynayso mar walba sama-falka waalidka waa shay waajiba oo ilaahay uu isku xidhay saan ka hore kusoo sheegnay waqadaa rabbuka an laa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana waxa uu ilaahay amray inaad ilaahay keligii caabuddo sidoo kale aad waalidka u samafasho waa wax la isku xidhay oo marnaba kala tegay waayo ilaahay baa amray inaad isaga keligii caabuddo waalidkana u samafasho marka halka waxaad ka dhanansanaysaa inuu shay waajiba oo aad iyo aad u muhiima u yahay sheekada saddexaad ugu dambeysa waa sheeko uu nin wiil dhalin yar iska sheekeynayo isagii hooyadii wixii kala dhex maray sheekadu waxay ku bilaabmaysaa aniga oo yar buu aabbahayga dhintay buu yidhi markuu aabbahayga dhintay hooyadii baa gacanta igu haysay oo ku dadaashay in aan qeyrkii la mid noqdo oon wax barto oon sida ay wax u cunaan iyo sida ay u seexdaan mar walba ay hooyadii ku dadaashay inaan iyaga la mid noqdo oonan waxba ka yaraan markii dambe aniguna hooyaday waxa ay samaynayso hoos umaan dhigin laakiin anigu laftaraanteeda waan dadaalay cashiradeydii sidii loo baahnaa baan uga soo baxay secondarygii markaan dhammaystay ayaa waxaan helay scholarship baan helay scholarshipkii markaan helay baan baxay markii aan baxay aan soo noqdeen soo qalin jabiyey waxaan helay shaqo fiican lacag fiican iga soo gasho kadib markaan guri dhistay ay hooyaday gurigii gashay ay hooyaday markii dambe aan ku yidhi hooyadayna guursadaan rabaa markaa hooyaday waxay ku tiri gabadhan diinta leh guurso anigu waan diiday hooyaday buu yidhi waxaanan guursaday gabadh qurux badnayd oon jeclaa gabadhii markaan guursaday
ayaa maalin maalmaha ka mid ah aan xaafadda imiday iyadoo ooyeysa islaantaydu. markaasaan ku iri maxaad ooyeysa? markaasay si gaaban igu tiri ama aniga ama hooyada. intaan hooyadii u tagay baan anigoo xanaaqsan baan ku iri hooyo guriga u bannee oo iska soco. markay muddo yaroo dhaqan ka soo wareegtay baan damiirkayga damqaday buuri oon dibadda u baxay oon hooyadii raadiyey. markaan hooyadii raadiyey waan soo waayey, waan soo noqday. muddo markay kasoo wareegtay intay hooyadayga maqan tahay xanuun baa igu dhacay, dhakhtarkan galay. hooyaday waxay maqashay in aan xanuunsanayo, way ii timiday. markii ay hooyaday ii timiday islaantayda albaabka ka celisay oo ku tidhi islaan yahay xuni maxaad naga rabtaa, hor iska soco. muddo markii sidii kasoo wareegtay dhakhtarka in fara badan baan ku jiray. xanuun aada ii daashaday baa igu dhacay. naftaydii hoos u riday, niyadaydii sidoo kale hoos u riday. shaqadeydii baan waayey. sidoo kale waxaa dayn iyo amaah fara badan baan madaxa u galay. waxa intaasoo dhan dhibaatada ay daba socoto o dhan waxa igu wacan buu leeyahay gabadha quruxdoodan leh ee aan guursaday. mar walba iguna daalisay buu ihi waxyaalaha ay dalbanayso. ugu dambayntii si cad bay iigu tidhi maadaama oo shaqadaadii weyday, gurigaagii aad weyday, bulshada kaalintaad ka taagnayd aad weyday, kuma rabee ifur. warkaasi waxa igu noqday buu ihi sidaa hillaaca oo kale. aad buu iga nixiyey. markii dambe waan furay. hooyadii baan raadiyey. hooyadii markaan raadiyey baan helay buu ihi muddada intaa leegan kala maqnayn inay hooyaday joogi jirtay waddada oo ay qarafaysan jirtay. markaan hooyaday arkay buu ihi intaan cagahayga isku tuuray ayaan oohin bilaabay. hooyadayna naxariis aawadeed bay oohintii igu dartay. saacad wax ku dhowban ooyinay buu ihi. kadib markii dambe hooyadii waan soo kaxay, gurigii baan keenay. iminka waxaan ku noolahay maalmahayga kii ugu fiicnaa ee ugu qaalisanaa baan ku noolahay. waxaan la noolahay hooyaday aan aadka u jeclaa. ilaahay cumriga ha u dheereeye. waxa aan leenahay ilaahu waalidkayga noo daa, caafimaad qab iyo khayr buu ugu daa, cimrina u biiri, caafimaadna sii, ajarna naga siisay noo soo koriyeen. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.